labada kun iyo 17 anagoo meel jaamacad ka dhiganayno master oo magister diyaarinayno ayaa subaxdii masaajidka jaamacadda iyo meesha aan seexanayno ma kala foga marka subaxdii masaajidka marka uu nin ba istaaga wadamadaas uu ka yimid waa nin dhakhtar ah jaamacaddu marka wax ka diyaarinay kulliyadka islaamiga dhakhtar mar soo diyaariyo istaagaya maalin ba waxaan ka qabtay darsi aad u muhiimsan wuxuu yiri dadka abiteedku ka xiran yahay wax ma cuni karo una gaajeysay gaaska dhibay labo hargabkiisa badan saddex madax xanuunkiisa badan afar goonjabkiisa badan dhinac inay ku xanuunto halka bas intaas ku xanuunayso intaasoo dhan qofka ka caafimaad waxaan yiri bal noo sheeg aan dhan wada taagina waxa soo dhan daawadoodan hayagu markaas wuxuu yiri waa nin cibaado badan adogu nin dhakhtar waa wuxuu yiri ma awoodaan inaad soo kacdaan salaada subax ka hor hal saac ama ugu yaraan 45 daqiiqo haabaan dhahay marka soo kacay waxa samaysaa laba koob marka hore sii diyaarso laba koob biyo oo diiran oo aad u kuleyn oo aan la fiiqsanayn oo aad cabi karto laakiin hooga oo diiran marka goormaad cabaysaa marka soo kacdid adkaarta akhriso musuusha gal adeeso arabka xog waliba qof hunqaa oo kale hab meelaha yaala ayaa soo go'ay buuri ha ka soo go'o oona dareemi doontaa wiil wad haraadaysaa soo wis qaado antaadan rakaayiga adan bilaabin sunnooyinka adan bilaabin labada koob ka tuur buuri usbuuc koowaad usbuuc labaadna koob saddexaad ku dar asalku yiri afar koob loogu talagalay laakiin hadda abtid mas'uulnood ku waalanaysa mar shaqaysanaysa duuri marka waa inaan tartiibinaa buuri marka labada koob caadi normal waa usbuuc labaad ku xigana koob saddexaad kan usbuuc saddexaad koob afaraad afarta koob marka hal litr waa koobka normalka ku yareeyo ma markaad abtid wuxuu yiri waan isu imaan doonaa buu yiri waxa hubaala markii koobka abto aad cibaadaysto laba rakac saddex rakac juz akhristo saacad kadib laazim mas'uul u baahanaysaa buu yiri maalmaha ugu horeeya horta hayaabin buu yiri wax ka imaanay adina nafta hala yaabin hawo meesha ka timid aan la ogeyn ayaa albaabka furnayso waxa caloosha darbiyada saarnaa abitid laanta keenay darbiyada saarnaa kulligoodii waxa la yaabayso oo wada socda oo wada laalaada ayaa imaanay caloosha nadiif ay noqonay wixii caloosha abitid ka dhan way soo baxayaan inta tukanaysa ama dhaqaaqayso dhabarkan waad ka dhididaysaa wiil gacmaha waad ka dhididaysaa sidaas aan u arkaanu dhidid meeshu ka yimid aan la ogeyn aka imaanay inta si tukanaysana caloosha qaylada ka yeerayso wada yaabaysaa wiil dagaal ka socdo bas musushaad galaysaa maalmaha hore horta waxa way wasakh ka imaanay wiil iyo hawo mar markii musuqa ka soo baa salaad soo tukato waxa leedahay aawi anta adigo dhan waxaad noqonaysaa gaajo meesha ka timid aan la ogeyn abitid ku furmay wiil wuxuu yiri marka faa'iidooyinka laga gaaro horta gaasku waa lagu caafimaadaya buuri muddo ku dhibi doona gaaska maalmaha hore way u daran tahay buuri biyaha tirada badan ku kacaya si wad buuri calooshaadina ma fariisanayso saaradaadina ma adkaanayso baabasir hadii jirtana way baaba'aysa tii soo socotayna waa laga hortagay buuri waa la wada weligeed aniga 17 kan bilaabay wali waan iska wada lana caafimaad ma ka helay lana wala qabsanaysa biyaha wada u baahan tahay waa la karkarnayaa tarmuuska lagu shubanaya haasi shaqo kale marka wax oo la fiirsana kuleel ma waxa aadi loo abi karo laakiin diiran waa laakiin qofkii caloosh inuu iska jaro rabo calool ka soo bad caloosh ma fiican iska ilaaliya qofkii rabo caloosh inuu iska jaro labada koob jablin dhanaana ku dhiijiyo way baaba'aysa waa la ogyahay anigu marka astaamo horta waan arkay hadda aan joogo wallahi ma xusuusnin 7 ka soo bilow ilaa hadda mar hergab maalin ugu dhacay ma xusuusnin laana fidnada kulligeedii madax xanuunka kulligood wax ka yimaado caloosh